السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada shabakada laga bartay cilmiga technology guud ahaanteeda loo yaqaan Tajmaal. Waan Amiin Cabdiya. Haddii alla idmo waxaan course bilaabi doonaa course-keena cusub ee halka bar technology-da oon hordhiciisii aan soo dhignay video aan ka sameeyno hore u soo shaacinay baraha bulshada sida Facebook aan soo dhignay, YouTube aan soo xareynay ama soo gelinay channel-kii hore channel-keena tajmaal.com. maantana waxaan qaadan doonaa cashirkiisii koowaad oo 1.1 ah waa maxay computer iyo qiimihiisa computerka uu kala baxo oo aan ku soo koobi doono haddii alla idmo waxa uu Ilaahay naga garansiiyo aan ku soo koobi doono lixda qodob haddii alla idmo oo ka mid tahay waa maxay computer, muxuu se qabtaa, qaybaha kala duwan ee uu ka kooban yahay computerku, qaybaha uu kala baxo, noocyada uu iska leeyahay, shirkadaha soo saara iyo lixda qodob ayaan haddii alla idmo ku soo qaadan doonaa course-kan 1.1 casharkiisa anagoo isku filinaysiin doona insha Allah bal 10 daqiiqo inaan ka forgareyno casharkayna. haddaan iska bilaabano waxaan ku horeyn doonaa qodobkeena koowaad oo waa maxay computer, muxuu qabtaa. inta badan computerku markaad uga jawaabayso ama aad si cilmiyeysan iyo markaad si oral uga jawaabto sometimes waa iswaafaqaan, sometimes waa iskhilaafi karaan, laakiin probability inta badan waa isku mid oo waayo maanta waxaan naqaanaa inta badan waxa uu noo qabto computerku faa'iidadiisa, faa'iido darradiisa oo waayo sometimes waa macaan iyo qaraar meel ku wada yaala oo kaad rabto aad ka helisid. ugu horantii waxaan ku horeynaa waa maxay computer inta badan marka la qeexayo waxa inta badan la soo yaqaanaa oo inta badan lagu qeexaa oo ah qeexitaankiisa ama lagu fahmi karo oo qof walba fahmi karo waxa weeyaan computer inuu yahay waa aalad ama device inta badan wax la gashado, waxna laga saaran karo, waxna lagu kaydsan karo. waa maxay waxa lagu kaydsan karaa? waxa lagu kaydsan karo waa macluumaad, ha noqoto file, book, video, image, sawir iyo waxyaabo kala duwan oo si digital loo gelinayo. ma gelin kartid warqad intaad soo qaado lama gelinayo, laakiin si digital wixii aad qoranaya amba file diyaarsan aad ku shubanaya amba ka saaranaya printerkiisa gashanayo si hard u soo saaranayo. sometimes way dhacdaa inaad hard to soft u bedesho oo aad computerka dhex gelin karto adigoo scanning sameynaya oo scanka marinaya warqadaha rabtid. inta badan waxay noo qabtaa oo aan ka isticmaalnaa inaan faylal badan aan buuga ka akhrisano, muuqaalo ku daawano, sawiraan ku hagaajisano, ku daawano sawiraan, internet-kan kula xiriirno qof kale, shirkad kale kula xiriirno, family iskula xiriirno meelo kala duwan jooga. waxyaabo badan ayuu noqota lama soo koobi karo. waxaan ka gudbinaa oo inta badan hadda la soo qaataa taariikhdiisa inuu inta badan la aasaasay 1832 sometimes way jiraan website iyo macluumaad kale oo ku saabsan oo waafaqsaneen in la soo saaray, laakiin fikir ahaan waxa la yiraahdaa wax la soo saaray oo ikhtiraacadiisii ugu horeysay uu soo baxday haddii alla idmo aan ku qaadan doono casharkeena 1832 waxaana la bilaabay 1822 oo nin loo yaqaano Charles Babbage oo loo yaqaano ninkan sawirkaad ka muuqata ayaa fikirkiisa lahaa la yiraahdaa oo waxa xataa ereyga computer human computer ayuu ka yimid oo markii hore waxa la isticmaali jiray modern abacus oo ah mid lagu xisaabiyo xisaabaadka complex-ka ah oo ay dadka more intelligent-ga macnaha aqliga u saaxiibkii ay ka xisaabin jireen. marka dadkaas ayaa loo oran jiray human computer. marka computerkii humankii oo ah dadkan xisaabaadka inta badan complex-ka xisaabiya ayaa laga soo qaatay computer ayaa loo bixiyay. marka inta badan fikirka computer in la asaaso oo electronic wax lagu shubto oo wax lagu xisaabiyo uu noqday fikirkan in wax lagu xisaabiyo ayuu fikirku ka yimid computerka ahaan oo loo isticmaali jiray modern abacus kaas oo wax lagu xisaabiyo intii qarniyadii hore intuu computerku soo bixin lagu xisaabin jiray ayaa laga soo qaatay. ninkan ayaana soo saaray waxaan la sheegaa in 1832 uu soo saaray oo design gareeyay computerkii ugu horeeyay, laakiin waxyaabo kale way jiraan oo la yiraahdo 1900 iyo sometimes la soo saaray 1900 ayaa la soo saaray. laakiin inta badan waxaan markaan akhriyay intaas
waana akhrisan kartaa reference kale oo kale computerkii ugu horeeyay noocaas ayuu ahaa la raraa inta badan oo wax aad u weyn ay xajmi weyn ayuu waxaan u gudbi doonaa haddii aan la idmo oo ah qodobkeena saddexaad qaybaha uu kala baxo computerku waa afar qaybood ayuu kala baxaa qayb la yiraahdo case oo hadda ina hor taagan oo aan suurkiisa arkayno oo case-ka systemka dhan uu ku shaqeeyo ah qayb loo yaqaan monitor oo muraayad ah qayb loo yaqaan keyboard iyo mouse saddexda afarta qaybood ay kala baxaa oo systemkan aan maanta ugu jirnay case-ka loo yaqaan amba systemka loo kala yaqaan hadba ereyga saad u taqaanaba u qaado ereygan macnaha case-kan amba systemkan ba waxa uu muxuu ka kooban yahay power supply oo ah isagu mid dabka u soo gudbiyo computerka oo without electricity uu shaqeyn karay motherboard oo ah isaguna mid inta badan loogu talagalay in agabka computerka lagu xirayo sida CPU-ga oo qof qaadan doona RAM-ka motherboardka power supply-ga laftigiisa dabka siinaya agabkaas oo dhan qaybo kala duwan oo ay kamid yahay inaad USB-yada gashato inaad computerkii muraayadii kula xiran karto waxyaabahaas oo kale motherboardka ayaa inta badan lagu rakibaa oo lagu soo sameeyaa motherboardka soo gaaran waa la iibsadaa CPU waa maxay oo microprocessor waa maxay CPU inta badan waxaad aragtiin central process unit oo ah mainka ama brainka ama maskaxda dhan ee uu ku shaqeeyo computerku oo xawaaraha badan siiya xawaaraha badan oo ku shaqeyn karo wax kaga jawaabi karo inta badan siiya waa maxay RAM oo inta badan isaguna ah motherboardka kan ku jira oo xagaas ayaa la geliyaa inta badan xaga labada cadcad ayaa la geliyaa CPU-guna waa ka xaga yaala oo xagaas ayaa la geliyaa inta badan motherboard RAM waa maxay random access memory ama memory waa kan xasuusaha iyo programyada iyo speedka computerka inta badan u qaabilsan oo computerka high speedka ka dhigay markaad RAM-ka kordhiso wayna kala duwan yihiin RAM-ka laptopka iyo RAM-ka computerka kan aan dheer aad arkaysiin waa ka computerka desktopka kanna waa kan laptopyada la geliyo oo aad ay u yar yahay uu ka kaaban yahay kale waxa kale oo uu leeyahay oo systemka dhexdiisa ku dhex jira waxa loo yaqaan hard disk oo ah mid kan ku kaydiya macluumaadka sida fiidiyoyada sawiraanta buugaagta artikalada waxyaabahaas oo kale ku kaydiya oo 500 GB 1000 GB 1 terabyte aad ka hesho 300 GB inta badan aad ka hesho computerka waa maxay waxa kale oo qaadan doona hadii aan leedmo isagana oo ah mid aad u muhiim ah inaad barato external hard disk oo ah kan external ah ku extra oo dheeraad ah oo wax lagu shubto hadii uu ka buuxsan computerkaagi amba aad uga baqday inuu virus ka galo macluumaadkaaga ka baxo waxa inta badan lagu kaydsadaa hard disk external loo yaqaano oo storage-kiisu aad u badan yahay 500 GB helayso 1000 GB helayso 2000 GB 1 terabyte 2 terabyte 3 terabyte aad helayso computer monitor oo isaguna ah kan lagu kaydsado inta badan macluumaadka aad ka daawan karto iyo fiidiyoyada iyo sawiraanta oo muraayada aad baa loo wada yaqaan keyboard oo taqaanin oo kan aad ka isticmaasho mobilkaaga computerkaaga aad ku isticmaasho waaye mouse waa taqaanin inta badan oo isagana wax afaala oo ma baahna waa maxay qaybaha kala duwan oo uu kala baxo computerka waxa uu kala baxo computerku 5 qaybood ayaa ugu muhiimsan oo ka mid tahay super computer oo ah loo yaqaan kan aad u performance badan micro computer ama mainframe computer loo yaqaan oo shirkado inta badan isticmaasho computerada computer aad weyn oo buuxiya kan ka yar laakiin super computerka ka yar laakiin kiisagiisana aad u weyn yahay oo inta badan loo yaqaan la dhigto oo shirkaduhu isticmaalaan mini computer oo ah kan inta badan isticmaalan iyaguna radio station TV-yada iyo waxaas wax ku kaydsadaan personal computer desktop-yada caadiga la isticmaalo station computers laptops-ka oo inta badan aad u taqaanin aan isticmaalno tablets-ka oo isaguna ah device ka dambeeyay laptops-ka oo loo isticmaalo in wax macluumaad lagu kaydsado wax laga soo saaran karo aad loo isticmaalo sawiraan lagu qaadan karo video lagu duuban karo game lagu ciyaari karo inta badan la isticmaalo waa maxay shirkadaha soo saara inta badan laptops-ka maxaa kamid ah Dell ayaa kamid ah Acer ayaa kamid ah inta badan aad taqaaniin Asus ayaa kamid ah HP baa kamid ah
waxaa kamid ah LG, Toshiba inta badan yimaada dalka gudihiisa. Sony ayaa kamid ah, Nokia ayaa kamid ah inta badan iman dalka aan ku aragin laakiin sometimes way jiraan. Samsung ayaa jira oo ah ka inta badan loo isticmaalo mobilada iyo laptopyada tabletska inta badan soo saara. Lenovo, Intel way badan yihiin inta badan shirkadaha soo saara kombiyuutarada iyo laptopyada iyo desktopyada. intaasaan cashirkeena maanta ku joojin doonaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi